السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيرت شرفت لكم سدوا هذا يوتيوب بيج كأنه عمر شيخ عاو حاسلا فلاقين دونا وركي وجود بيه كوحدة ما يونايتد iyo kulanka weyn ee soo socda maalinta sabdiga ah ku dhaxmari doona kooxaha Crystal Palace iyo Man United oo kulankaas oo kooxda Man United ay away tahay ay ku ciyaari doonto safri doonto guriga kooxda Crystal Palace marka soo dhawaada mar labaad like share iyo subscribe ta naga hilmaamina haddaan hordhac aan u galno wararka caawa aan isla fiirin doono iyo waxaa la leeyahay Manuel Ugarte iyo Garnacho Alexander Garnacho oo la leeyahay macallin Ten Hag waa inuu kusoo bilaabaa kulamadan maadaama natiijooyin fiican ka keeneen kulamadii la safay oo bedelku lagu soo geliyay maadaama natiijooyin fiican ka keeneen kubad fiican soo bandhigeen ninkan Garnacho la leeyahay oo goolal iyo assist badan uu sameeyay marka waxaa la leeyahay macallin Ten Hag waa inuu ku qasbay wuxuu problem kaas leeyahay ciyaartoydiisa iyo safa iyo keed geliya iyo ciyaarta kusoo bilaaba iyo keed geliya maadaama ciyaartoy badan oo on form u joogaan oo macnaha waqti xaadirkan natiijooyin fiican soo bandhigay ciyaaro fiican soo bandhigay sidoo kale waxaa isla fiirin doona waxaa kale sidoo kale wararkeena kamid ah daafaca kooxda Man United Højlund iyo Mason Mount qadka dhexe oo la leeyahay dhaawac way ka soo laabteen oo waa diyaar training ay ka qayb qaateen maanta marka kulankan oo sabdiga ku dhaxmari doona kooxaha Man United Crystal Palace ma lagu soo bilaabi doonaa oo ma ciyaari doonaan ayadana waa isla fiirin doonaa sidoo kale waxaa fiirin doonaa waxaa la leeyahay kooxda Man United oo gurigeeda Old Trafford inay ka guurto oo ay go'aan ku gaartay wararkii laga dhahay ayadana waa isla fiirin doonaa sidoo kale iyo waxyaabihii kale kusoo kordhana sidoo kale waa fiirin doonaa iyo shaxda kooxda Man United oo la qiyaasay macallin Ten Hag inuu kusoo galo inkastoo macallin Ten Hag shaxdiisa mar walba si sax aan loo qiyaasi karin oo mar walba uu wax ka bedelo haddana wixii anaga ay nala tahay iyo ciyaartoyda qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen iyo sida uu qiyaasayno ayaa idin la wadaagi doonaa mar labaad mar saddexaad share-ka naga ilmaaminaa iyo subscribe iyo like-ta haddii aan ku bilowno kulanka hordhaca ee kooxda Crystal Palace iyo Man United aan fiirino dhaawacyada kooxda Man United iyo ciyaartoyda ka maqan sida caadiga waxaa ka maqnaayay Højlund, Mason Mount, Luke Shaw iyo Malacia ayaa ka maqnaayeen Mason Mount iyo Højlund way soo laabteen ayaa la leeyahay tababarka ayay ka qayb qaateen laakiin se wali lama hubo in fitnesskooda 100% uu yahay oo lama saadaalin karo in ciyaarta kusoo bilaaban doonaan in kale maadaama ciyaartoy badan oo kooxda joogtana ee line upka ay rabaan inay ka qayb galaan maadaama ciyaaryahanno badan ay soo bandhigayaan ciyaaro fiican marka waa macallin Ten Hag wareer haysta la leeyahay iyo kusoo bilaabaa iyo keed geliya waa kala gaar la'yahay laakiin anaga dana noogu jirto in ciyaartoy aan fiican tahay kulligood on form noqdaan dana noogu jirto sidoo kale waa aragteen waxa ciyaartoyda on formka kamid ah Ugarte Manuel Ugarte kulankii habeen horeeto oo kooxda Barnsley aan u baxnay bis ayaa lagu soo bilaabay intii ka horeysay bedel ayaa lagu soo gelinayay kulanka Barnsley waxa waaye 60kii markii 70 meelaas ay maraysaa la bedelay marka kulanka Crystal Palace waxa la leeyahay waaba waajib inuu ku soo bilaabo sidoo kale Garnacho ninkaas oo kale nin keed la geliyay ilaa ugu dheer kulan kasta goal assist mar walba waxa soo sameeyna marka ninkaas wuxuu ku qasban yahay inuu soo bilaabo Rashfordna keed ma geli kariyo oo waxa waaye gool loo dhaliyo aragteen kulankii horeeto gool u dhaliyo kulankan gool u dhaliyo marka asigana on form huwa ama diyaarna ka daranba ninkaas waxa waaye hadda kulanka hadda oo Barnsley dib laga soo geliyay ciyaarta 10 daqiiqo wax ka yar ka dhiman yihiin la soo geliyay ninkaas asigana on form waa keed ma gali doono marka Ten Hag haysta asii u taala waxaa kale oo la leeyahay hadda isla fiirino ninkan Manuel Ugarte ciyaarta wax weyn oo ka bedelaa waaba xitaa Casemiro ciyaar fiican soo bandhigay markii uu ku jiro Manuel Ugarte garoonka sababtoo ah waxa ka dambeeyo nin kubad burburiya oo hadii la Bruno uu qalday xitaa ma ka walwalayo waa lagu dhaafay Bruno gool laga dhalnay ma ka walwalayo Ugarte soo qabanayo Bruno isla markiiba marka Casemiro ku faa'iido leeyahay Mayano waa ku faa'iidayo Bruno waa ku faa'iidayo especially Bruno Eriksen soo kala habeen wuxuu goolash u dhaliyo hore u aaday mar walba weerar uga qayb qaadanay waxaad Ugarte ku tashanay marka iyo Casemiro gadaal isla joogeen marka waxa leeyahay wax weyn ayu ciyaarta kooxda Man United ee sanadkan uu ka bedeli doona sidoo kale waxa marka dhaawac si toos caadiyan ugu maqan Luke Shaw iyo Malacia oo hal garab isla dheelaan oo bidixda daafaca bidix isla dheelaan marka labaasna mar walba wali waa maqan yihiin inkastoo labadoodaba dhaawac ka soo laabteen laakiin fitnesskooda liitaa leeyahay tababar zaid ah loo diraa sidaas oo kale waxa la leeyahay haddii aan isla fiirino macallin Ten Hag shaxda uu ku soo gali doono oo aan qiyaasno sida caadiga kulankii hore Barnsley
league cup-ka waxaa Onana waa la fadhiisiyay waa la nasiyay waa iska cadda in Onana kusoo bilaabi doono sidoo kale wuxuu kusoo bilaabi doonaa dhaxda Martinez iyo Delight oo ayagana la fadhiisiyay inkastoo Delight oo 20 daqiiqo ciyaarta 30 daqiiqo ka dheelay oo la bedelay Johnny Evans oo maba ka bixi karin ma dhameysan karin marka waxa labaas daafac ayaa lagu soo bilaabi doonaa Martinez iyo Delight labada dhaxda labada daafac full back-yada waxa lagu soo bilaabi doonaa Dalot iyo Mazraoui oo labadaba fadhiyan kulamadii marka afarta daafac iyo Porteria intaas ayaa rajeynayna inuu kusoo bilaabo macallin Ten Hag sidoo kale labada kubad burburiye wuxuu ciyaarsiin doonaa sida qiyaaseeno Manuel Ugarte iyo Mayno ay isku soo bilaabi doonaa maadaama labadoodaba la nasiyo waqti fiican macnaha nasiina fiican ay qaateen Diasha Bruno ayaa noqon doono maadaama kulanka hore uu bedel kusoo galo nastay garbahana sida qiyaaseena sida caadiga ahayd Rashford iyo Amad Diallo ayuu kusoo bilaabi doonaa halka afka horeeto oo Xerxes uga soo bilaabi doono waa sida aan qiyaaseeno laakiin wax kasta dhici karo Eriksen hadda 2 goal iyo assist uu sameeyay inuu kusoo bilaabo waa dhici kartaa Casemiro inuu kusoo bilaabo waa dhici kartaa marka waxay noqon doonto waa arki doonaa macallin Ten Hag sidoo wax yeelo arki doonaa laakiin waxa la leeyahay Ten Hag season kan rajo fiican ayuu leeyahay xitaa waliba wuxuu haystaa la leeyahay squad fiican oo macnaha haddii ciyaaryahan ka dhaawacmo xitaa uma dhunti doono oo hadduu mid ka dhaawacmo laba kale oo haystaa saddex kale oo haystaa boos kasta ugu yaraan laba ciyaaryahan oo fiican hadda haysta waqti xaadirkan markii laga reebo left back-gaas waxaa dhibnagaas asigana waxa la leeyahay waxa usii buuxinayo Dalot iyo Mazraoui marba mid la reersiina marka Ten Hag sanadkan natiijo fiican ayaa laga sugayaa marka hadduu ilaahay yiraahdo kulanka sabdiga sida aan qiyaasayno ma 2 saac ma soo galaa mase 3 saac marti xilliga geeska Afrika ma saac soo gali doona hadii asla fiirino wax yarno kaadiya kulankaas wuxuu noqon doonaa kulan macallin Ten Hag waxa leeyahay natiijadii Barnsley iyo uu kala kulmay Southampton waxba ma tari doonto hadduusan Crystal Palace ka raacin waxa leeyahay ugu yaraan waa inuu 5 kulan oo isku xigta uu raayaa si macnaha momentum-ka kooxda iyo niyadda kooxda ay si fiican meesheeda uga socoto oo si fiican ay u dhismato marka hadduu ilaahay yiraahdo anagana waxa waa Crystal Palace waxa inta kulan la dhismaysa badan hal kulan baraaj gasho kulamada kalena waa laga badiyay marka waa arki doonaa waxay soo gali doontaa geeska Afrika hal saac bar habeenimo maalinka sabti habeenka xad soo galaysa hadduu ilaahay yiraahdo waaba ciyaarta ugu dambaysa waa ciyaaraha kala dhanna naga horeeyaan ayaga naftirkooda waxa saadaal ayaa ka sameey doona kulamada Premier League isbuucan leel doona maalinka sabtiga iyo maalinka xad la dhiri doono saadaalintiina iyo idinku xidina noqon doonto waxa videoga dambe idinku kula wadaagi doona halkaas aad maanta wararkeenu ku egyihiin kooxda Man United iyo macallin Ten Hag iyo ciyaartoydii wax ka maqan oo dhan hadaan fiirino intaas ayaa kusoo gabagabeynayna kulankan iyo kulan dambe inta iska arki doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh